Audio Jungle. waqti iyo ficilo badan oo wanaagsan ayay u baahan tahay inaad bulshada sumcad iyo qadarin ku dhex yeelato. laakiin hal ficil oo falcelin xun ah oo aad ku kacdo ayaa hal mar burburin karta sumcaddii iyo sharaftii aad bulshada ku dhex lahayd. noloshu waa 10% waxa kugu dhaca, 90%na waa sida aad uga falceliso. ma isdhexdaa mararka qaar ficilada ay dad kale kugu samaynayaan way fiicnaan lahayd inaad awood u yeelato maamulkooda, laakiin xaqiiqada ayaa ah inaadan maamuli karin. ma xakamayn kartid maskaxda dadka kale, ma xakamayn kartid waxa tegay iyo waxa soo socdaba. maadaama aadan waxaas oo dhan xakamayn karin, waxaad ku khasbanaan doontaa inaad falcelin samayso. in aadan ka falcelin xaalad walba waa awoodda ugu dambaysa uguna muhiimsan. qofka aanan xakamayn karin naftiisa ma xakamayn karo noloshiisa oo dhan. noloshan waxaa jira dad mar walba jecel inay dhib kuu geystaan, sidoo kale jecel inay burburiyaan farxaddaada iyo sumcaddaada. marka haddii aadan xakamayn shucuurtaada oo aad u falceliso una jawaabto adiga oo aan naftaada xakamayn, waa lagaa guulaysan doonaa. haddii aad rabto inaad ka guulaysato dadkaas, waa inaad barataa sida loo xakameeyo nafta iyo maskaxda, isla markaana aad joojiso falcelinta aanan muhiimka ahayn, sababtoo ah cadowgaaga waxa uu ku isticmaali doonaa habdhaqankaaga ah falcelinta xad-dhaafka ah. mararka qaar cadowgaaga waxay rabaan inay kaa xanaajiyaan si uu u lumo kontaroolkaaga, sababtoo ah markaad xanaaqdo kontaroolkaagana lumo, waxaad bilaabaysaa inaad si ka fiirsi la'aana aad u falceliso waxaad rabtana aad sheegto. waxaaba dhici karta inaad bixiso sirahaaga ama aad dhahdo ereyo xunxun sida aflagaado iyo wixii la mid ah. taasina waxay burburinaysaa noloshaada. cadowgaagana intaas ayuu rabaa, wuuna ku farxayaa. waxaad qiyaastaa imise qof oo xiriir noocuu ahaadaba idinka dhexeeyey ayaad ku weysay ama aad ku kala xumaateen ilbiriqsiyo, sababtuna ay tahay ereyo xunxun oo aad ku dhahday adiga oo aan ka fiirsan. ha hadlin adiga oo caraysan. ha ogolaan in afkaarta dadka kale ay go'aamiyaan habdhaqankaaga. haddii aad ogolaato dadka kale inay xakameeyaan waxa aad samaynayso, ma hanan kartid awooddaada nolosha. si aad u xakamayso caradaada iyo falcelintaada, waxaan kula wadaagi doonaa farsamo cajiib ah oo lagu magacaabo STOP. farsamadan waxay ka kooban tahay 4 tallaabo oo fudud, waxayna kaa caawinaysaa inaad isdejiso marka aad dhexda ka taagan tahay xaalado adag, macquulna tahay inaad isxakameyn weyso. magaca farsamadan waxaa laga soo gaabiyey 4 xaraf oo kale ah. S waxaa laga soo gaabiyey stop, T waxaa laga soo gaabiyey take a breath, O waxaa laga soo gaabiyey observe, B waxaa laga soo gaabiyey proceed. haddii aan xaraf usoo qaado, S sidaan soo sheegnay waxay u taagan tahay stop. tallaabada ugu horreysa waa inaad ku fikirtaa sidaad ku joojin lahayd falcelinta. waxaa la diidaya in markaad xumaan la kulantaba aad hore falcelin ka bixiso. tallaabadan waqti badan uma baahna, keliyana waxay kaa qaadan kartaa waa ilbiriqsiyo. T oo u taagan take a breath. tallaabadan labaad waa inaad neef qaadataa. neef qaadashadu waxay dhahaan waa habka ugu fiican ee aad naftaada ku xasilin karto marka aad ku sugan tahay xaalad adag ama aad walwalsan tahay. O oo u taagan observe. u fiirsashadu waxa ay qayb muhiima ka tahay xasilinta nafta. waa inaad ka warqabto xaaladaada gudaha iyo tan dabaddaba. waxaa lagaaga baahan yahay in 3 meel oo jirkaaga ka mid ah si mug leh aad uga fiirsato: dareenka jirkaaga, xaaladaada shucuureed, iyo xaaladaada maskaxeed. tallaabadan waxay fursad kuu siinaysaa inaad hubiso naftaada oo aad ogaato xaaladda markaas taagan iyo sida ay kuu saameyn karto. xarafka ugu dambeeya P oo ah proceed. tallaabada ugu dambeysa waa inaad ku dhaqaaqdaa wixii aad samayn lahayd. markan jawaabta aad bixinayso waxay noqonaysaa mid miisaaman, naftaada difaacaysa, qof kalena aan waxyeello u geysanayn. ogow, haddii aad farsamadan ku dabaqdo noloshaada, naftaadana qiimo ayaad u yeeshay, dadka kalena waxay kaa aaminayaan inaad tahay qof karti iyo caqli badan.